waxa khadka telefoonka si toos ah ugu jira afhayeenka jaaliyada Khaatumo ee geyiga Imaaraadka wadana la soo xiriiday marka koobaad marka xigta maxaad rabtay inaad ka hadasho oo aad diiradda saarto bismillaahi raxmaani raxiim walaalayaal marka ugu horeysa waxaan salaamayaa shacbiga Khaatumo meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba waxaan maanta idin la soo xiriiray waxa jirta in la doonayo in maamulka Khaatumo oo cadow badan leeyahay in maanta inta yar hadda la isku diro oo la iska horkeeno marka shacbiga Khaatumo waxaan hajoogeen gudaha dalka ama hajoogeen dibadda aad u mahadsan tahay Rashiid Diiriye waxa tahay siyaasi Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn maamulka Khaatumo ee tis qaaday ayaad ka soo jeedaa waxaad ka dhawaajisay maamulka Khaatumo in la isku dirayo la doonayo in madaxa la isu geliyo haddaad halka yara faahfaahiso dadka ku dhageysanaya aad u faahfaahiso yaa doonayo inuu isku diro ama haddii badbaadiyada aad ku hayso adigu nadara waxa jirta waxaad ogtahay maamulka Khaatumo waxa reeraha ka xiga niman aan doonayn ama maamulka aan doonayn in wada maamulka Khaatumo uu iska madax banaanaado shacabka Khaatumo ay ku noolaadaan nabadgelyo barwaaqo iyo barwaaqo sida ay ugu nool yihiin kuwa ka soo jeeda gobolada Garowe iyo gobolada Hargeysa maamulada Hargeysa jooga iyo maamulka Garowe jooga sida ay shacabku u nool yihiin marba ka wada rabaan kuwa u diidan oo hadii loo diidan in maamulka dhismo ama ay shacabka Khaatumo danawada ka tashadaan ayaa waxa jirta in aan doonayo in arrimahaas ka hadlo tusaale ahaan waxaad arkaysaa in labada maamul maanta waxa magaalada Laascaanood ku sugan hogaamiyaha maamulka Somaliland Siilaanyo oo adagtiin inuu meel Garowe u jirta 40 kilomitir uu maanta tagay isla markaana maamulkaas Garowe ka armay Puntland Cabdiwali Gaas uu madaxda u yahay uu daawanayo aad arkayso in arrintaas iyadoo halkaas Siilaanyo uu ka damaashaadayo in ay wiilaan dhalinyaro ama niman odayaal ah ay u soo direen oo maamulka Hargeysa meesha dheeraad Garowe iska jooga oo ay doonayaan wadanka intii haday oo gobolka Cayn gaar ahaan gobolka magaalada Buuhoodle inay khalkhal geliyaan waxaad arkaysaa niman sheegaya maamulkaas Garowe oo soo barmoodeeyay ilaa xuduudda Itoobiya soo maray oo ilaa Garowe ka soo baxay oo la yiri waxaad khalkhal gelisaan amaanka magaalada Buuhoodle loo taag waayay galiya way tahay Rashiid Diiriye way tahay waxa lagu wadaa toddobaadada soo socda ama la saadaalinaya Professor Ali Khaliif Galeyd oo madaxweynaha maamulka Khaatumo inuu gaaro magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn iyadoo taala saadaalinaya maamulka Puntland ee looga arrimay magaalada Garowe waxa jirta in ciidamo fara badan oo tiknika wata u direen magaalada Buuhoodle ay maanta ku sugan yihiin arrinta maxaad ka oran lahayd iyada wallahi dara waxa weerantaas waa ayaan dara waxaad arkaysaa muddo laga joogo 3 sano maamulka uu hore uu madaxda ka faroole in ay xasuuq ka geysteen magaalada Taleex oo dhibaatadii halka geysteen wali ay taagan tahay barakii iyo dilkii dhameeyay wixii ka dhacay dhibaatada shaqada wali ay taagan tahay shacbigii walaalaha ay halka degaan la isku diray qaar la barkay qaar dhibaatadii wali ay taagan tahay taal tilmaamida yaan aniga faray waxay la qabaa maamulkan Garowe inuu adeegsanayo rag calooshood u shaqaystayaal ah oo doonaya tii ka dhacday tilmaamida inay ka dhacdo magaalada Buuhoodle ama gobolka Cayn ama dhulka Khaatumo intaan la haysan waa ayaan daro iyadoo cadowgu 40 kilomitir soo jira magaalada Garowe oo Siilaanyo joogo in muddo 4 meel u jirta 300 kilomitir ama 400 ku dhawaad kilomitir oo magaalada Buuhoodle oo dhulbaantoodan eeganayo oo dhulbaantoodan difaacanayo oo dhulbaantoodan ay ka qayb galayaan wax qabadkiisa iyo horumarkiisa ay ku raacsan yihiin maamulka Khaatumo oo airport ay airportooda ay shaqaynayaan oo maamulkoodii Khaatumo ee golaha deegaanka ay shaqaynayaan oo cashuur lagu ururiyo iyadoo maanta ognahay in lagu kala dareeray maamulkaas Puntland oo dhibaatooyin ay ka taagan yihiin in maanta la khalkhal geliyo magaalada Buuhoodle oo ciidamo loo soo diro oo aan arkay niman isku soo sawiraya meesha la yiraahdo ceelkii biyaha oo ay leeyihiin waxaan ka qabanaynaa maxay wax uga qaban waxaan u arkaa ama shacbigan warbaahinta ay u aragtaa in nimanka la soo diray Garowe laga soo diray maamulka Puntland ay soo diray ay doonayaan dhibaatada ka dhacaysa mid lamida inay ka dhacdo magaalada Buuhoodle waxa la waxay u qabanayaan ma jirto shacbiga Buuhoodle waxaan u soo jeeday ama ka codsanaya war sidaa isku duwantiin aad u taagantiin maamulkiina taageertaan aad u taagantiin inaad karaamadii sharafta dhulbaanta soo celisaan aad u taagantiin inaad ka qayb qaadataan xoreynta Laascaanood ama gobolada SSC meel kasta ay joogtaan ka qayb qaadataan yaa la idin soo gaban yaa niman mashruuc soo qaatay oo doonaya maanta xitaa inay qabsadaan madaarkii Buuhoodle ama makulihii deegaanka Buuhoodle meelaha dadka shacbiga Buuhoodle iyo shacbiga dhulbaanta ay dhisteen inay maanta soo taagaan oo ay khalkhal geliyaan oo imaatinka madaxweynaha dawladda Khaatumo oo ku soo beegan magaalada madaarada kamid ah madaarada gobolka Cayn ama maamulka Khaatumo
inay khalkhal geliyaan loona soo diray waxaan u aragnaa in halkan nimanka loo soo diray buuhoodna maanta ku sugan inay doonayaan dhacdadii ka dhacday taleex dhacdo kala dhigay buuhoodna ka dhacdo oo shacbiga degan ee walaalaha ee heeganka ee had iyo habeen u taagan midnimada baanta inay khalkhal geliyaan isku diraan ka faa'iidaystaan isla markaana ka ciideeyaan nabadda yar ee maanta haystaan guntiga gabagabadii ayaan ku sii dhownahay maxaad seebaad u aragtaan ka jaaliyad ahaan ama adigoo fayeen baa tahay jaaliyadda Khaatumo aan horeyba u sheegay maamulka Khaatumo ee ku sugan waddanka Imaaraadka seebaad u aragtaan dawlad goboleedkii dhawaan lagu aasaasay Cadaado ee Galmudug wallahi anagu haddaanu nahay intan shacab midnimada ummadda Soomaaliyeed ama inta jecel dawladda Soomaaliya noqoto dad u madax banaan gobol kasta inuu maamulkiisa dhisto anagu sidaad noogtahay madaxweynihii Khaatumo iyo maamulkii Khaatumo intooda xamar ku sugnay dal iyo dibadba waa soo dhaweeyeen waana ka qayb galeen waxaan leenahay hambaliyo shacbiga Galmudugna waxaan leenahay inaad ka shaqaysaan sidii ummadda Soomaaliyeed isugu keeni lahaa anagu Khaatumo ahaan kala reebi mayno madaxda qaranka Soomaaliyeed hadduu yahay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud hadduu yahay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid hadduu yahay Maxamed Xasan Jawaari kala reebi mayno hawsha ay ku jiraan maanta ama ay ku sameynayaan gobolada maamul goboleedyada waa ku taageersanahay hawsha uu ka qayb galay madaxweynaha dowladda maamulka Khaatumo ee ku tagay magaalada la yiraahdo Cadaado oo ummad Soomaaliyeed degan xaq bay u leeyihiin inay maamulkooda dhistaan xaq bay u leeyihiin inay isu duubnaadaan xaq bay u leeyihiin inay ka qayb galaan horumarinta dalka waxaan leenahay waxa kuwa maanta qaylinaya anagu kala reebi mayno saddexda mas-uul ugu sareeya waddanka waa isku kaayimid iska siman ula shaqeynayna isku siman ugu hogaansanahay awaamirtooda waxaan rajaynayaa inay maamulka Khaatumo u soo jeestaan inta hadda ay u qabteen 20 ka sano ay u qabanna ay u soo jeestaan sidii maamulka maadaama aanu nahay shacbiga kaliya ee ku dhacan gobolada waqooyi ee maanta cadaystay inuu midnimada ummadda Soomaaliyeed taageersan yahay in il gaar lagu fiiriyo oo aan loo eegin labada maamul ee Soomaaliya iyo Puntland oo doonaya inay soo celiyaan qadiyaalad dhamaatay waad ogtahay maamulka galbeed meesha la yiraahdo Garowe ka taarimiya maanta wuxuu isku dayayaa inuu Jubbaland iyo Puntland isku xidho waad ogtahay hadday qadiyaalad wax tarayso magaaladaas aan 40 kilomitir u Garowe meel waxaa degan maamulka Soomaaliland baa haysta inta ay kismaayo ordayaan ama u dagaalamayaan ama leeyihiin Soomaaliya fadlan ay gelino maxay maamulka ay hadda goliyaan waanu sheeganaa ama waa xukmo ama gobolada ay siibaan ka talina maxay wax uga qaban waayeen waxaan rajaynayaa ama leedahay warqadiyadu waa dhamaatay aad baad u mahadsan tahay Rashiid daaro baa isu yahay hawiye isaaq waa dhamaatay dowladda federaalka iyo calanka buluuga loo dhex taagan yahay waana soo dhaweynaa waa la shaqeynaa madaxweynaha dowladda Khaatmona waxaan leenahay guul iyo gobonnimo aad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Rashiid Diiriye afhayeenka jaaliyadda Khaatumo ee waddanka Imaaraadka oo khadka telefoonka nagula soo xiriiray kana hadlayay arrimaha ka taagan geyiga maamulka Khaatumo gaar ahaan magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn aad baan ku salaamayaa mudane waa salaamaya shacabka Khaatumo ee guul iyo gobonnimo